dhacdooyinka caalamka, dhiirigelinta, qisooyinka, taariikhyada, intaba waxaad ka helaysaa janaalka Sahanwade. Fadlan ka mid noqo dadka ka faa'iideysta muuqaaladiisa. Subscribe dheh, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha koobaad. Mahadsanid walaal. lama hadlayo siyaasiyiin, lamana hadlayo dad kala ujeediya afkaar ah, lamana hadlayo taageerayaal urur, taageerayaal kooxeed, taageerayaal gobol, taageerayaal xisbi. waxaan la hadlayaa rajo, waxaan la hadlayaa iftiin, waxaan la hadlayaa mustaqbal, waxaan la hadlayaa barbaar la sugayo, waxaan la hadlayaa haldoorkii, hoggaankii iyo hormuudkii berri. walaalayaal, saaxiibayaal, adeerayaal, nolosha waad u daayartiin, fursadaha iyo jaanisyada waad u daayartiin, shaqooyinka waad u daayartiin, guusha waad u daayartiin, magaca iyo muuqashada iyo mansabka iyo maalkana waad u daayartiin. intaasoo dhanna waxaa keliya taydinka xiga waa aqoon iyo dadaal. marka damaca kayrkaa yahay duni dhan maaree, adna maaha dibu guur oo hankaaga duuduub. darajada wax kaa xiga oon dadaal ahayn sheeg. in badan oo idinkoo kalaa ayaan jaaniska iyo fursadaha ay hesheen aan helin. in badan oo idinkoo kalaa ayaan wakhtigu saacidin, maalmaha iyo marxaladuhuna soo dhowayn. war haddaad waxbarasho bilaasha hesheen, haddaad doon iyo dheef iyo hoy bilaasha hesheen, dhallinyaro fara badan oo da'diinna ah oo jeclayd inay waxbartaan noloshana tadawur iyo horumar ka sameeyaan ayaan riyadoodu u rumoobin, oo ku nool dhulka Soomaalidu degto, oo badhkoodna dawlad la'aani ay heshay, badhkoodna dawlad xumo heshay. haddaa wakhtiga ka faa'iidaysan weydaan, macallimiintii wakhtiga fiican tacabka idin soo geliyey iyo waalidkii dhabarka iyo dheegga idin saaray ee dhiigga iyo dhuuxa idiin shubay abaalkooda ma gudi kartaan, kamana soo bixi kartaan. mas-uuliyadda naftiinna iyo noloshiinna iyo mustaqbalkiinna idinka saaran haddii aqoonta iyo fursadaha aad hesheen ee isku kiin raacay a ka faa'iidayn weydaan. 2022 100,000 oo reer Maraykana ayaa isku diiwaangeliyey safar aan soo noqosho lahayn ay ku tegayaan dayax. ujeeddadii u tegayaan ha saxsanaato ama ha qaldanaato, waxaa suuro gelisay inay tahay aqoon baad garan kartaan. aqoontu waa ta keentay 2 wiil oo hooyo iyo aabba wada dhaleen in midna naftiisa aan waxba laga weydiin, midna dunida wax laga weydiiyo. aqoontu waa ta keentay in koonku noqdo maqsin. waa ta tiknoolajiyadda casriga ah ee maanta dunida ku shaqayso hirgelisay. soomaaliduna waxay ku mahmaadaan ninkaan taa ka dhididin taasuu ka dhididaa, oo macnaheedu yahay ninkaan maskaxda ka dhididin muruquu ka dhididaa. haddaad aragto dal horumar sameeyey, marka hore waxau horumariyey aqoontiisa iyo jaamacadihiisa, waxauna dhisay garaadka ummaddiisa. dal kastana waxaa ka qaldama halka laga saxaa waa jaamacadaha. horumarkuna maaha jaajuur iyo dhoobo iyo niis iyo jiingad laysa saarsaara iyo biriisho dhaadheer iyo daara dhaadheere, waa bini'aadam la dhiso. war siday warshaduhu u soo saaraan dawooyin iyo cunooyin iyo qalabbo kala duwan ayay jaamacaduhu dad u soo saaraan. dadkaasaana dunida wax ka beddelaa, waana idinkoo kale. inta badan wakhtigan xarumaha iyo goobaha adduunyada laga hagaa waa jaamacadaha. daraasadaha iyo cilmi baadhista ay sameeyaanna waa kuwo cilmigii jiray xaqiiqo cusub ku soo kordhinaya. ilaahayna qur-aankiisa waxa uu ku yidhi callama bilqalam callama al-insaana maa lam yaclam. waan idinku dhiiri gelinayaa, waana filayaa imikaba inaad samaysaan daraasado
iyo cilmi baarisyo kala duwan roobka iyo raxmadda ilaahay shubaa ee cirka uu ka keenaa badda iyo berrigaba si isku mid ay ugu da'aan berriga ama dhulkase waxay ka soo saaraan nabaad iyo dog xataa haddii ay ciiddu qallasho balse biyaha roobka ee ilaahay cirka ka keenaa biyaha baddee dhanaan waxba kama beddelaan adigana noloshaada cid kale waxba ka beddeli mayso haddaan aqoontu kaa beddelin adna aanad isbeddelin haddaad iminka xaflad aroos qabato ood ka qayb gasho soo ma qiyaasi kartaan dareenka farxadda leh ee raynraynta leh ee qusulka leh ee qobka ciyaarka leh ee xafladda aroosku ay wadato haddaad si aas ama geeri tagto waa garan kartaan in shucuurtaadu taa ka duwan tahay war sidii xafladda aroosku kuu xasuusinayso dhaldhalaalka iyo hawooyinka nolosha aaskuna kuu xasuusinayo in aakhira jirto noolana dhintay yahay adigana maalin maalmaha ka mida wadku kugu soo xaadirayo aqoontu ha kuu xasuusiso in dalkaaga iyo dadkaagu ka mid yihiin dunida saddexaad oo dama adiguna iftiin iyo tooshiyo naldaara aad u tahay qof kasta oo xorriyadda u halgamaa si uu xorriyadda ugu noolaado dhimashuu u badheedhaa qof kasta oo nabadgelyo u halgamaana si uu nabadgelyo ugu noolaado naftuu u huraa qof kasta oo nolol wanaagsan u halgamaana si uu nolol wanaagsan ugu noolaado waxbuu u bartaa war waa su'aala waxaa baranayso iyo cilmigii aqoonta aad baranaysa ma waxaad u baranaysaa keliya ta inaad ku shaqaysato mise waxaad u baranaysaa in lagugu yeedho hebel waa jaamici mise waxaad u baranaysaa in aqoontaasi dadkaaga iyo dalkaaga wax ku soo biiriso saddexdaa jaanisba haddaad wax u baranaysaan saddexdiiba wada haysaan haddaad wax u baranayso in hebel waa jaamici iyo waa aqoon-yahan lagugu yeedho tuulada yaraad ka timid iyo magaalada aad joogto maqaaxiyaha ku yaalla subax hore ku soo kalah tay dheer iyo faylna soo qaado dadkuba ay ku odhan haddaadse wax u baranayso aqoonta aad baratay inay noqoto mid ka beddesho wax dadkaaga iyo dalkaaga iyo naftaada waa kartaa adayna kugu xidhan tahay haddaad waxse u baranayso inaad ku shaqaysato waayi maysid haayad yar oo aad ka hawl gasho oo ribood kulba 4 baysha ku dirtood ku dhimoodobaato qof aqoon-yahana oo PhD ama master sita ama degree sita oo waxba ikhtiraacin oo waxba soo kordhinayn oo waxba soo biirinaynin waxba kama duwana akhristo wanaagsan aqoonta baratay ilmaaday rayaal waxa abuurto oo waxa ikhtiraacdo warninkii leedkan inoo iftiimaya sameeyay 999 jeer ayuu ku guul daraystay isagoo confuse oo meel fadhiya dad badan ku soo xoomeen waxay weydiiyeen waxa ku dhacay wuxuu ku yiri markii 999 baan ku guul daraystay dadkii way la yaabeen war shaqo tagba ku dhaana hatima weynaani wuxuu ku yiri ma khasaarin waayo waxaan bartay 999 hab oo laambadu aanay ku bixin marka qofkay ku xidhan tahay waxa uu doonayo iyo waxa uu yahay inaad noqoto qof aan waxba isku dayin waxba soo biirin waxba soo kordhin ama aad noqoto qof ku xisaabtama qof kale noloshiisa iyo mustaqbalkiisa iyo quruxdiisa iyo hantidiisa waxa ka muhiimsan inaad noqoto qof isaga lagu xisaabtamo oo maxaa laga xisaabtamaya xirfadiisa lagu xisaabtamaya oo aqoontiisa lagu xisaabtamaya oo kartidiisa lagu xisaabtamaya umana baahnid halka taagan tahay iyo heerka joogto inaad ku qanacsanaato waxaad soo baahan tahay halka tiigsanaysaa inay ku qorshaysnaato si hadafkaaga iyo himiladaada aad uga madhadhalisana waa inaad la timaadaa adkaysi iyo dulqaad iyo samir noqo qofka aad rabto inaad noqoto qofka aad rabto inaad noqoto wax kastoo lagu sheegayna intaana sii sheegin hubso inaad xubsan weydaa shakhsiyadaada waxyaabaha dilayay kow ka tahay war waxaanad garanayn haddii lagu weydiiyo oo aad tidhaahdo waan garanayaa ma waayaysid qof soo dedejiyo fashilkaaga laakiin waxaanad garanayn marka aad tidhaahdo ma garanayo ma weydid qofkuu sheega yaan dulqaadku kaa dhigin qof damiirku meed yahay
fudaydkuna adoo dagan magacaaga yuu dilin ha yeeshee duntaadiyo inaad tahay qof daacada adigoon ku daalayn dadka kale ka dhaadhici dabcigaagu kaa tahay ha ku sheego dabada noqo qof wanaagsan balse wakhti badan ha ku lumin inaad dadka ka dhaadhicisa inaad tahay qof wanaagsan hana sugin cadeed kuu soo baxday ama kuu dhalatay inay kaaga wanaagsanaato ta kuu dhacday haddaanad shalay sidaad ahayd maanta beddelin berrina sidii unbaad noqonaysaa qof kastaana wax kasta uu jecel yahay ma helo balse wax kasta uu ku dadaalo wuu helaa ha ku mashquulin tagtada si aanad uga mashquulin timaadada xaaladuhu way adkaan karaan duruufuhu way qallafsanaan karaan waxbaa si kaa noqon karaa hadday maalintu kugu xun tahay macnaheedu ma aha inay noloshu kugu xun tahay shimbirtu geedka laanta ay kaga joogto xataa hadday jilicsan tahay oo ay la jabaso kama warwarto waayo waxay kalsooni fara badan ku qabtaa baalasheeda aqoontiin iyo qofnimadiin iyo soomaalinimadiinna iyo ciddaatiin kalsooni ku qaba qaladaadkuna laba noocun buu leeyahayoo waa mid qofku wax ula ekaadaan wax kale iyo mid badrheedh ah mushkilad ma laha qaladka wax kuula ekaanaya balse waxa daranka badrheedhka ah qofkuna haddaanu qaldamayn ma noqdeen qof insaan oo dhammaystiran in la qaldamaa waa dabiici balse waxa daran in qaladka shaqo laga dhigtoo lagu soo celceliyo ha iskula yaabin inaad qalad samayso balse waxaad iskula yaabtaa inaad qaladkaaga sixi weyday haddii aan caagaddaa culayskeeda waxaa laga yaabaa in 150 gram ama ilaa 100 muhiimba maaha culayskeeda dhabta ahi haddaan 1 minute kor u hayo waxba dareemi maayo soo maaha balse haddaan saacad kor u hayo waa hubaal in gacantu ii daalayso haddaan se 72 saacadood kor u hayo waxaa laga yaabaa inay gacantu ii qallasho hadda culaysku caagaddu isbeddeli maayo balse wakhtiga fara badan aan kor u hayaa waxay ku xidhan tahay inay ku keento xubnaha jidhkayga daal kaarkiiyo xanuunkan ay gu soo kordhiso fikirka qaldan iyo walwalka iyo cadhadu waa sida culayska caagadda haddaad waxoogaa fikirtood warwarto waxba dareemi mayse balse haddaad 24/7 maskaxda wareejiso waa hubaal in wax badani iska kaa jiidhayaan war haddaan dadku dhaxan iyo qabow aanay la gariirin gabboodiyo guri samaysta may garteen haddaan dadku gaajoon oonay calooshoodu weyddiin waxay ku ridaan geedkaa midhaha ku yaalla ka gurta may garteen mushkiladda iyo duruufta iyo dhibaatadu waa laga yaabaa inay ku haysato in badan oo mujtamaceenna ka mida oo dadkeenna ka mida ayay dhibaatooyinka iyo mushkiladuhu noloshooda ku xidhan tahay oo haddii ay dhibaata dhici weydo aanay noloshoodu suuragal noqonayn tusaale ahaan haddii baabuur banjari waayo haddii taayir banjari waayo oo baabuurku xumaan waayo oo biri cilladoobi weydo ninka makaaniga ama farsamo yaqaankii faruhuu laabanaya in mushkilada dhacdo ay xumaadaan baa isaga dani ugu jirtaa haddaynu sidaynu isku xigno innagu isku aasno adduunyada waxaa jira kambaniyo ka shaqeeya geeriyaha iyo aasaska war haddii ciidiba dhiman weydo qofka xafaarka ee xabaalaha qodaa shaqo heli maayo in gurigiisa dab laga shidaa uga muhiimsan in guriga ka soo horjeeda laga baroorto sidoo kale muranka iyo buuqa maxkamaduhu hadday jiri waayaan oo dadku isa sudhnaan waayaan oo madaxa la iskula jiri waayo ninka looyarkaah cid uu garweysiiyo iyo cid uu gar siiyo midna heli maayo sow durbalaysiga ma taqaanaan ama dhawrtada ama maxay ahayday dawarsiga nin odayaa oo ka mid ahaa dad yowga dhawrtaysta ayaa gurigu yimiday gurigii markii uu hor istaagay ayuu ku yidhi liibaan akhwaan wax ma haysaan waxaa jooga markaa guriga gabadh way iska xinaysanaysaa ilaahay baa u nimceeyey halkanay fadhidaa waxba kama qasnaa waxay ku tidhi adeer waxsa wuxuu ku yidhi waxoogaa calala oo huna haddana ma haysaa haddana markaasay ku tidhi waxsa
haddana mar labaad buu ku yidhi koo biyaah haddana mar saddexaad ayay ku tiri adeer waxsan kadibna wuxuu ku yidhi xaajiyo odaygaagii ma joogaa way xanaaqday maxaa ku baray odayga maxaad ka doonaysaa indhahay kaga dhacday wuxuu ku yidhi dawaydinkana waxbay ma dhaantaan waan wada dhuubtay tegi lahayde ma joogaa war waxaan idin leeyahay war adinkiiyo ka suuqa jooga ee aqoonta iyo cilmiga ka arradan haddaad isku dhaqan iyo isku sifi iyo isku tallaabo iyo isku sii noqotaan waa mushkilad war aqoonta aa barateenee wakhtiga fara badan ku bixiseen yaanay idinka noqon mid ku faana marka deeq laguu huray tahay hooy daba soco dookhaagu waa dookh ninku dilay kiraystee yaan duunya xilashadu kaa ridin dalluuntoo duruufuhu la haysta iyo waxmadiide kaa dhigin danley iyo adoo noqon baahi ruuxa lagu dago marna doonis ruux kale ha u gelin dunuubtoo dadka ha isku waayina fushataada daayacan marka uu qofku gaboobo wax badan baa horta ku dulduma waxba noloshiisa kama beddeli karo balse intaad daayar tahay ee aad dhallinyarada tahay ayaad noloshaada wax ka beddeli kartaa oo aad dooran kartaa berri sida quruxda badaneed u noolaan doonto haddii allaha awooddali kugu simo sugaan baana tidhaa arrintii sindheernimo kugu seegtay waa tii adoonsayn cadaalaa sababteedu joogtay jigjigaaba laiga sheekeeyey niman xamaaliina oo tuulo si wada jira uga shaqaysto baabuurtii timaadaba reerka ka roga ayuu u yimidday nin xamaalnimada ku cusubay wuxuu damcay baabuurkan sibidhka ah ee ay rogayaan inuu wax ka rogo way diideen wuxuu damcay inuu xoog ku galo baabuurkiibuu jambiga iska laalaadiyey mid ka mid a xamaalintii xagga sare saaran ayaa ul yar qaadayoo markuu soo qabsado fanaxyadu kaga jidaa gacmaha tab iyo xeelada uu kori waayay bartaasuu bax markaasuu oohin qabsaday oday baa soo maray ninkii ooye wuxuu ku yidhi war maxaa dhahay xaaladdii markaa ayuu uga warramay markaasuu ku yidhi war haddee ma waxaad u ooyi maxaa laii rari waayey war haddaad wax baran weydaan ood aqoonta ka faa'idaysan weydaan wallaahi waa la idin rabaa anaa idin leeyahay maxamed xusni mubaarig madaxweynihii hore ee dalka masar 40 sannadood ayuu dadka reer masar xukumayey oo uu qasriga madaxtooyada ka talinayay meel 800 tallaabo halka dadka reer masar looga taliyana waxa yaalay jasadkii ninkii kibray ee ilaahnimada sheegtay ee qur-aanka laynoogu sheegay ee fircoon jasadkiisii maxamed xusni mubaarig kuma cibro qaadan kuma waana qaadan mucjisadan rabbaaniga ah ee garabkiisa taalla waxaaba u damcay dadku 40 sannadood soo hor joogay inuu ciyaalkiisa u tababaro kursiga ku wareejiyo dhashiisa iyo dhallaankiisa waxbarashada aqoontaad barateen yaanay idinka duwin dadkiinna dalkiinna diintiinna damac cindhala'ana yaanay idiin gelin waxaan idinku waaninayaa waxaysu ahaanshihiinna hoose ee reernimo waxaysu ahaanshihiinna hoose ee qabiilnimo waxaysu ahaanshihiinna hoose ee qolonnimo waxaa ka muhiimsan waxaysu ahaanshihiinna guud ee qoomiyadnimo ummadnimo haddaad aqoon-yahan tahay ma tiid ingiriis mana tiid kuuriyaan waxaad tahay muwaadin u dhashay dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ku faan soomaalinimadaada ku faan jiritaankaaga waxaan idinku boorinayaa inta isku kii soo jiidda ee isjacaylku ka mid yahay ee isxurmayntu ka mid tahay ee istaakulayntu ka mid tahay waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ka fogaataan dhaqannada liitay qabyaaladdu kow ka tahay tahriibku laba ka yahay waxaan idinkula dardaarmayaa acmaasha wanaagsan ee soonku ka mid yahay ee salaadu ka mid tahay ee sadaqadu ka mid tahay ee u dhaganugeylka waalidka uu ka mid yahay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi waqadaa rabbuka an laa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu